أنا مركل دي بقول لابتو صاحب هذا برامج قال غيب قليا ودركحين كوزارة الرياضة إسبورتيكا صادق ظاهر مرة وقل مدوك إيو محمد أو لباح وزير كوزارة الرياضة إسبورتيكا جبلان دي بيان وصلنا قندونا عيارها يا بالله وده شلنا مدحوينها يا فري ترتكي قبل هذا مقدشو إيو وحاول قبل كبنادي وحاول عيار كونفور قلبيت ciyaartina dabcan waxay ku dhamaatay waa loogaa oo ilaa 5 April ayaa looga adkaaday kooxdii matalaysay Koonfur Galbeed waxa laga yaabaa labadiina xulalka matalaysa ama kooxaha inay isku soo aadaan oo Jubbaland iyo Galmudug ay kulmaan markaad eegto oo libaax kooxda aad keenteen Muqdisho qaab nooceeya ayaad ku soo xusheen waa mahadsantahay adeer horta waxa weeye guushu diyaar garowga kuma xirnay qadartay ku xirantay marka koobaad sababta waxa weeye wixii ilaahay ku qadaro oo aad nasiibka ku hesho baa ku raacaya marka koobaad marka labaad kooxdan runtii waa koox laga soo xulay kooxii jiray Jubbaland marka waana koox runtii aqoon dheer la geliyay waa arki doonaa ilaahay idinkii wixii ay waxaad ka filaysaan laakiin waa inay guul soo hoyaan baa aad guul weyn ma ka filaynaa sadaqay santahay su'aal aad iyo aad runtii u fiican baad weydiisay marka tirada sportiga horta runtii gobolada anagu hadda Galmudug marka loo fiirsho macnaha sportigu wuxuu keenay isdhexgal badan oo runtii degmooyinka Galmudug badankooda laga soo xulay ciyaartoydii jirtay waxayna ahayd shaqo aad iyo aad aan u gelinay effort badan oo culays badan oo gelinay runtii oo laga soo xulay taas waxay muhiim noogu ahayd maadaama degmooyinkii maamulka tagnay degmooyinkii dhamaa magarasa dhalinyarada ay ka yimaadeen oo isbarteen oo haddana kuwii xulka ahaa ay usoo baxeen xamar taas kaliya horta waxay noo tahay runtii guul weyn inaan magaranaysa ka gaadhno badaskana kolley mar walba u yaalaa kooxaha waxay leeyihiin tababar magaranaysa waqtigii markii ugu horeysay ciyaartan dhacda 27 sano kadib ciyaaro xataa waxa ugu dambeeyay ciyaarihii gobolada aan ilaahday maadaama maanta maamul goboleed haddana waa wax bilaabmay waxa laga yaabaa sanadaha soo socda wax ka fiican inay jiraan laakiin kooxdayda runtii aad baan ugu hanweynahay inay runtii ay guul soo hoyaan shaqada gashay iyo waqtiga kale darteed maamulka Galmudug cadaada ayuu ku sugan yahay xaruntiisu ay tahay caasimadii maamulkaasna Dhuusamareeb wali ahlu sunnah joogta ma ku jiraan ciyaartooyda aad soo xusheen kuwa aad ka keenteen Dhuusamareeb iyo Gurceel iyo meelaha la sunnah haystaan dabcan waxaan ku sheegay in sportiga markii la ilaa xuduud male siyaasadna kuma jirto ciyaartooyda haddaan ku kala sheego waxay ka yimaadeen Gurceel waxay ka yimaadeen Dhuusamareeb waxay ka yimaadeen Caabudwaaq waxay ka yimaadeen Cadaado waxay ka yimaadeen Gaalkacyo intaasi waa meelaha Balanballe intaas waa meelaha kooxaha waaweyn ka dhisan yihiin marka xuduud male sportigu wayna ku jiraan markasta ciyaartooydii laga xulay oo libaax Kismaayo kaliya aad ku egtiin oo malin adinka ciyaartooyda marka laga hadlayo ما saddexda gobol runtii waxaad ogtiin saddexda gobol ee Jubbaland gobol waxa haysta nimankii nabadiidka laakiin dadkii wuxuu joogaa labada gobol oo kale ayuu joogaa marka Kismaayo kaliya maahan saddexda gobol dadkoodii waa dhan way dabcan waxa suurtagal ah in isku aadkii uu isu kiin soo aado labadiina maamuladiina ciyaartooyda isku dhacaan waxayna noqon doontaa ciyaaro xiiso leh oo dadkuna ay daawo doonaan oo libaax markaad fiiriso awoodda kooxda Jubbaland matalaysa meeqa aad isleedihiin way u adkaan kartaa kooxda Galmudug adeer horta qaybka cidna kama hadli karto qiyaasta laakiin waxaan ka hadlaynaa waa qiyaas weey waad ogtiin Kismaayo waxay ahaan jirtay xulkii hore oo Soomaaliya meelaha aad runtii Soomaaliya guulaha ciyaartooyda ay ka imaan jireen guulaha weyn Soomaaliya uga soo hin jiray kamid ah marka iyadoo aan taas igsanahay waxaan rajaynaynaa inaan runtii saaxiibada nagu soo aadi doono Galmudug inaan diri doono 5 April sadaqay kolay runtii hadda ciyaaraha jira systemkii hore iyo waqtigii 17 sano way ka duwan yihiin dalku wuxuu soo maray dhibaatooyin badan sportigu wuxuu baahnaa runtii hil maadaama qaranku maanta u hiiliyay sportiga
wixii way isbedeleen TV live ma jiri jirin waxyaabaan dhamay daawan jiray marka sportigi sidii hore aad ku taqaanay oo Kismaayo todobada koob aysan jirtay waa ka duwan ka duwan yahay wajh kale u yeeshay marka si kastaba ahaatee kolley guushi sidoo hore u sheegay wasiirku cudun buu raaci doontaa laakiinse aad iyo aad shanta ma isleedii wala ka badira laba dheeraad aad saari doontiin waay ma isleedii markaad eegtiin dabcan inkastoo maamuladu aad soo dhawaadeen oo aad xiriirkooda u wanaagsan yahay hase yeeshee mararka qaar ay jireen xoogaa siyaasada ay maamuladu isku diidan yihiin wasaaradaha dhalinyarada isboortiga xoogaa marka aad eegto wasiirada kale ee howlaha kale siyaasadda ku jira way kaga saaxiib dhow yihiin misleediin oo libaxan koor maro ها هذا يا لين أديات سبت حوي هذا أنا جي وزير كشلة وحنسكو برنا وزير كلام كي أنا شلة وحنسكو برنا قرونك هاي ساكن أو اسكو سوق لهني على سيدي وتصرع عليه وتصرع عني هاي وحالم إذا وزير كسبورتيجا أو إن كوفر قلبت با يا شلة إسبرنا سيلتي ما تام بلاسنا وزير ك وزارة الفدرال كدلنا يرضى سبورتيجا لفتي سي تلفن موجي ما تصرفتين شلي بان سبرناي شلي تصرفتين marka dhamaan wuxuu ku haray wasiiradii dowlad goboleedyada iyo asaga isku haray waa la isbartay runtii waxaan jecelnahay inaan inta isla cashayno si live ah markay ciyaaraha dhamaadaan aan idin ku soo booqan doonana waa taasna ku jeedin marka saaxiibtinimo dhow aysan wasiirada lahayn waay bay runtii leeyihiin aywa saadaq arta runtii ka wasaaradahan anagu maamulkii hore galmudug waxaan wasiirka dhalinyarada isboortiga waqti badan runtii waan kasoo shaqaynayay haddana waxaan ka ahay dowladdan cusub wasiir ku-xigeen oo isboorti ah maadaama experience-kaas aan leeyahay intii aan shaqadan kusoo jiray runtii dad badan baan ku bartay meel kasta ahaadaan international ahaadaan qurba joog ahaadaan kuwa guud ahaadaan sidaasoo kale waxaa noo sahlayay anaga bulshadaana wada ma aha shaqsiyaad anagu shaqsiyad inaan dadka u raadsanayn laakiin bulshada ayay ka go'daa maadaama ay bulshadii iyo dhalinyaradii ay yihiin dhalinyaro isdhexgal u baahan oo isboortiga annagana waxaana furfuray taas marka siyaasadda dowladda Soomaaliya xataa bayska marka loo eego isdhexgalka iyo dhalinyarada iyo bulshada marka loo eego shalay runtii guul weyn ayay magaranaysa ahayd xataa kala badisi hawo feerin iyo shaqada weyn la isugu yimid shaqadii la qabtay iyo imaanshihii iyo waqtigii la geliyay runtii waxay faa'iido badan iyo dadka ummadda Soomaaliyeed adduunka meel kasta joogto ay shalay ka daawanayeen anagana kulay waxay noo tahay guul noo soo yeetay waxay noola mid tahay inaan koobkaas maaragtay anagu qaadneen waay marka laga tago tartanka la isugu yimid ma jiraan tartamo isboorti oo wasaaradihiinu ay diyaariyaan oo ay ku qabtaan deegaanada ay maamuladiinu ka taliyaan waxaan ku hormarayaa awlibax wayaan adeer aad baa mahadsan tahay runtii waa su'aal aad u qiimo badan aniga hadda waxaa ii qorshaysan haddii aan laabto ilaahay qadaro waxaa ii qorshaysan inaan ciyaarsiin doono saddexda gobol gobol walba aan markiisa ku qaban doono muddo aan siin doono chanceskaas aan siin doono sida gobolka Gedo kale 6 degmo gobolka Gedo marka koowaad inaan u hormari doono oo aan ciyaaro ku qabto ka bacdi lagu qaban doono labada gobolada kale loo qaban doono ciyaartoydii soo baxda saddexda gobol baa marka dambana ciyaari doona ugu dambeynta kooxdii soo baxda baa waxay la ciyaari doontaa haddii alla qadaro waxaan ku hormari doonaa saan jecelnahay hadda oo haddii ilaahay qadaro waxaan jeclahay inaan koonfur galbeed aan ku hormari doono marka way socdaan waana diyaarsan yihiin runtii waana su'aal aad muhiim ah والله عادي عاد بوفي عن تارنتاسي أنا وحنا رجعنا برنامج كسبورتي يقرشه هذا نودجن إنه رنتي وقت دير ونبضين تا وحفي عنه كسوقاتي أنا جا دجالو سسقي يحيى ويسكتيرن لكن سبورتي جو رنتي وكسوق قيب وين كسوقاتي نبضين تا قرشه نودجسن هذا كم ملهان إنه رنتي نودجسن سبورتي جو هي maadaama markii hore uu sportigu halkacyo ku ekaa cadaado ku ekaa cabudo ku ekaa dhuusamareeb ku ekaa kurceel ku hada laakiin markaas maamulada ayaa intaa ku ekaa laakiin sportigu mar walba wuxuu ahaa free buu ahaa oo waxaa jiray seminaaro waaweyn aan runtii ugu qabanay gaalkacyo hadda ka hor oo gobolada shabeellada dhexe iyo hiiraan iyo ay ahaayeen
mudug iyo galguduud afartaa gobol saasayna runtii ku soconaysaa qorshahaasi saasuna u soconayaa goboladaas oo dhan iyo degmooyinkaas iyo markaan qabano ciyaarahaas waxaan ugu horreysiinaa ciyaaraha iskuullada kadib kuwii degmooyinka kuwii gobolada markaa noogu xiga markasta qorshahaas diyaar dad way doontaa waad ogtiin wasaaradda dhalinyarada ay ciyaaraha mas'uul ka tihiin dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed ay tahriibkii wali ku dhimanayaan oo ay dhibaatooyin kala duwan kala kulmayaan oo aanay jirin wali siyaasadda u sax oo dhalinyaradaasi looga joojinayo xanuun intee laga yadeen ku haysaa arrintaasi maxaa qorshe ah oo aad ka diyaariseen maadaama dhalinyarada idinku aad wasaaradoodii tihiin si arrintaasi looga hortago aan saadaq marka la siiyo runtii su'aal aad u fiican baad na weydiisay waa wax ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogto dibadii gudaha arrin laga damqado weeyaan arrintaasi tahriibkuna hadda ka horeysay waxaan ka soo saarnay muddo hadda sanad iyo bar laga muddo 9 bilood laga joogo waxaan ka soo saarnay sharci ah sharciga dabargoynta tahriibka la yiraahdo sharcigaas wuxuu aan u gudbino maxkamadda waxa loo gudbiyay booliiska runtii waxa jiray dad badan oo ka ganacsan jiray tahriibka oo dhalinyarada ku jamin jiray waxa la influence amba macnaha maskaxda ka bedeli jiray oo dalka oran jiray macnaha meeshan waxaad ka helaysaa wax ka sii fiican sidan nolol ka sii fiican waxyaabahaas ku sheegi jireen waxa laga yaabaa waalidkii dhalay inay gurigoodii gadaan amba bakhaar gadaan amba wax kala gadaan wixii ay hantida haysan wiilkii intay siiyaan lacagtii wiilka ku tahriibay runtii taasi waxay noqotay waxyaabaha crime ah ay noqotay sharci baan ka soo saarnay waxa jira kulamo sporti iyo kulamo dhalinyaro aan ka qabanay tahriibka arrimaha khuseeya runtii marka loo fiirsho anaga wadanka Soomaaliya dhan meel kastaan joogno ma garanaysaa meel kastaan joogno iyo meel kasta la joogo wadanka Soomaaliya dhan waa caqabad iyo dhibaato badan waan ka shaqeynaysan sidii loo dhameeyay oo libaax aad baad mahadsan tahay runtii waa su'aal aad u qiimo badan oo ah xanuunka maanta dhalinyarada Soomaaliyeed haysata baad aad uga danqatay marka ku mahad celinaya adiga marka koowaad marka labaad dhalinyarada maanta Soomaaliya joogta waad ogtiin oo dhalinyaradani saddex arrimood bay ku baabeen waa mid bad ku dhimanaya iyo mid maskaxda laga xaday oo xabad ku dhimanaya iyo mid koolada dhuuqayo laamiga way taa horta waa arrin runtii dhibaatadeeda leh murugadeeda leh laakiin annaga hadda runtii dowladda Jubbaland arrintaasi runtii waxay ka yeelatay go'aan bay ka leedahay degdega waxaan sameynay dhalinyarada inaan u sameyno saddex arrimood ama afar baan dhaho kow dhalinyaradii in horta la wacyi geliyo oo laga wacyi geliyo tahriibka iyo mataqaanaa nimankan nabadiidka duurka ku jira in laga wacyi geliyo marka labaad waxaan u sameynay si ay xirfad ay ku shaqaystaan ay u helaan waxaan wadnaa tababaradaas in la baro biyo gelinta sida korontada oo kale farsamooyinka gacanta in guriga dhiska guriyaha inay dhisaan in la baro mataqaanaa howlahaas oo dhan in la baro si ay u helaan qofkii u helo xirfad marka waxaan sameynay tijaabadii koowaad waa la qaaday 116 arday baa ka soo baxday sida mataqaanaa gabdhaha kale waxaan iyada laftooda runtii markii dhalinyarada la yiraahdo wiilashii gabdhahaba waa yihiin gabdho kale waxaan rabnaa in ayaga laftooda harqaankii la baro mataqaanaa in kariska dharka sida loo kariyo dharkii la tolahayay iyo farsamooyinka runtii gacanta badan in la baro markii qaar waxaan bari doonaa dhalinyarada meelo kasta aan la kaashano si ay u ganacsadaan oo inta mataqaanaa dhaqaale yar la siiyo ganacsi ay u bartaan runtii dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada bana waxaan leeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed wax baratay waxaa dhacday wiilka waa la soo barbaariyay secondary jaamacad buu dhigtay shaqana ma helay marka wuxuu ku qasban yahay canugii inuu ama tahriibo ama uu mataqaanaa uu u gala kooxaha nabadiidka si taas loo joojiyo waa inay dowlad goboleedyada iyo dowladda Soomaaliya waxaan codsanayaa inay dhalinyarada Soomaaliya la siiyo shaqada la siiyo si loo dhiso maskaxdooda iyo loogana celiyo falalka laga hortago ugu dambeyn kelmadaada ugu dambaysa Saadaq maxay tahay runtii waxay noo tahay fursad aad u qaaliya maanta inaan TV-ga Universal soo fadhiisano waxaan bulshada runtii u soo jeedinaynaa haddaan anagoo ku hadlayna magaca maamul goboleedka wadanka
gaar ahaana waliba wasaaradda isboortiga dhalinyarada waxaan usoo jeedinaynaa runtii midnimada ummadda Soomaaliyeed waa in laga shaqeeyaa midnimada ummadda Soomaaliyeed waa muhiim isboortigu wuxuu noqday maanta wajigii koowaad dhalinyaradu magaranaysa isku timaado isboortiga way jirtaa ka wasaaradahan in dhalinyaradu qaranku ay hadda ka hor ay qabtaan dhalinyaradu isku yimaadaan laakiin isboortigu magaranaysa mug ku leeyahay isdhexgalka bulshada waa magaranaysa waa qiimo weyn runtii aad iyo aad baan u qiimeynaya waxaan aad iyo aad halkan ugu hambaleynayaa wasaaradda dhalinyarada isboortiga dowladda federaalka sidoo kale xiriir kubadda cagta Soomaaliyeed oo shaqo badan oo isdhexgalka ka qayb qaatay iyo maamulka gobolka Banaadir oo soo dhaweynta magaranaysa fursad noo siiyay aad baad u mahadsantahay kalimada ugu dambaysa mudane Awlibax horta dhammaan waxaan salaamayaa baxda saxaafadda yaan salaamay markay kooban marka labaad waxa weeye runtii waxaan leenahay midnimada ummadda Soomaaliyeed baa muhiim ah ayada waa in la ilaaliyo qof kasta oo Soomaali ah waa inuu ku fakaraa midnimada ummadda Soomaaliyeed horumarka iyo wadanka anaga inaan leenahay oo laga saaro sida hadda maanta ay ummadda Soomaaliyeed tahay Soomaaliyeed waa inaad ka saartaan baan leenahay runtii taas midda labaad dhalinyarada runtii isboortiga waa in madaxda Soomaaliyeed waa inay awoodda saaraan isdhexgalka nabadda iyo horumarka ummadda Soomaaliyeed runtii wuxuu ku jira isboortiga oo la tayeeyo marka taasna dhankaasaan leeyahay dhinaca kale waxa soo socda doorashooyinka runtii guddiga waa maqlahay guddoomiyaha guddiga doorashada runtii si fiican buu u hadlay waxaan leenahay ilaahay waxaan uga baryaynaa doorashadan inay noqoto mid runtii lagu guuleysto si cadaalad u dhacda ilaahay baana oga qofka ugu Soomaaliya ugu fiican in ilaahay nagu aadiyo baan ilaahay ka baryaynaa way aad bay u maasan yihiin saaxiibaday barnaamijka la qayb qaadanayay wasiirka wasaaradda dhalinyarada isboortiga maamulka Jubbaland mudane Maxamed Awlibax iyo sidoo kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga maamulka galmudug Saadiq Daahir Mare labadooda aad bay u maasan yihiin waan idin mahadcelinayaa Maxamed Maxamuud Yuusuf Awlibax iyo Saadiq Daahir Mare aad baad u maasanyihiin sida aad barnaamijka uga qayb qaateen iyo sida aad Studio Universal aad u timaadeen idinkoo marti magaalada ku ah kastoo magaaladiinu ay tahay waliba subaxtahoo laga yaabay inaad magaalada Muqdisho aad u qabow hurdada ka soo kicideeda inay aad u adkayd aad baad u maasantiin